hagaag daawadayaal nabadii meel kastoo aad joogtaan kulanti wacan oo wanaagsan mar kale kusoo dhawaada Daljir Media magacaygu waa Maxamed Xasan Maxamuud Otadheer. qodobka maanta aan rabay inaan isdul taagaya waxa uu yahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu markaasi soo bandhigay qorshe culimada adduunka qaarkeed ay ku macneeyeen inay tahay alla ka fogaasho isla markaasina ay wax u dhimayso diinta Islaamka. qodobka Imaaraadka Carabta uu iminka ku dhawaaqay ayaa waxa uu yahay waxa ay diyaarinayaan in ay hawada sare u diraan diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee drones-ka loo yaqaano taa oo sida ay sheegeen bacriminaysa daruuraha isla markaasina keenaysa roob. dabcan roobka imaashadiisa iyo maqnaashadiisa waxay ka mid tahay awoodaha alle oo isaga ayaa xadeeya malaa'igtiisa ayuuna ku amraa sida ayaan roobku nagu soo gaaraa. laakiin Imaaraadka Carabta qorshahan waxa ay markaas kala kaashanayaan professor jaamacadaha Ingiriiska wax ka dhiga sanadkii 2017 ay Imaaraadku 15 milyan oo dollar ku bixiyeen in markaas daruuraha Imaaraadka dushiisa hawanaya la bacrimiyo si roob uga yimaado. mid ka mid ah professorada jaamacadaha Ingiriiska wax ka dhiga isla markaasina mashruucan Imaaraadku iminka uu doonayo inuu roob ku dhaliyo madaxda u ah ayaa waxa uu sheegay in biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee dalka Imaaraadku ay aad u sii yaraanayaan isla markaasina ay muhiim tahay in buu yiri la dhaliyo roob isla markaasina la isku dayo buu yiri in la dhaliyo roob. dabcan Imaaraadku qorshahan waxa uu ku bixinayaa adduun lacageed oo aad u tiro badan balse culimada adduunka qaarkood ayaa ka falceliyay iyagoo markaas ku tilmaamay fal alla ka dheeriya isla markaasina aan waafaqsanayn sal iyo raad toona aan ku lahayn diinta Islaamka. horey waxaa baraha bulshada muddo u qabsatay diin cusub oo ay ka wadaan ninka comedian-ka ah ee caanka ka ah dalka Mareykanka lagu magacaabo Steve Harvey iyo yar u dhashay dalkaasi Dubai oo isaguna dabcan iyagu soo bandhigay qorshe cusub sida ay dhalinyarada qaarkood u fasirteen in ay tahay marin habaabin diinta Islaamka lagu sameynayo. Steve Harvey muuqaaladiisa waa daawanayseen sanadkan bilowgiisii ayuu waxa loo yaqaano dalxiis u tagay Dubai isaga iyo qaar ka mid ah familkiisa. waxa uu booqday goobo dalxiis iyo goobo taariikhi ah. dabcan goobi uu booqday waxa ka mid ahayd masaajid iyo kaniisad iska soo horjeeda oo ku yaala dalkaasi Imaaraadka gaar ahaan magaalada Dubai. masaajidkaasi Ingiriiska waxyaabaha uu soo qaatay ee aadka u cajibay Steve Harvey ayaa waxa ka mid ahaa in masaajidka magaca ku qoran laga dhigay Jesus waxa la yiri waxa magac looga dhigay Mary the Mother of Jesus oo macnaheedu uu yahay Maryam hooyada Nabi Ciise. waxaa ka soo horjeeda dabcan masaajidkaasi kaniisad oo dabcan dadka masiixiyiinta ay ku cibaadaystaan. waxyaaba marka soo jiitay Steve Harvey uu rabay inuu bulshada uu maxaa la yiraahdaa wax la yaab leh uga dhigo ama impress wax la yiraahdo uga dhigo waxay ahayd in masaajid lagu qoro magaca Maryama oo Nabi Ciise hooyadiisa radiyallahu anha. sidoo kale yarkaas isaguna Imaaraadka u dhashay Steve Harvey markaas isagu wareejinaya waxa uu baraha bulshada ku soo qori jiray haddii aad rabtid inaad lacag samaysid oo aad shaqaysid waxyaabo noocaas dhalinyaro marin habaabin noocaas bulshada soo galiyay. marka waxaa la isweydiinayaa dalka Imaaraadka Carabta waxa ku socda xagee uga sii dhaqaaqayaan diinta Islaamka oo ay u sii fogaanayaan. dabcan waxaan ka warsugi doonaa muddooyinka soo socda iyo culimada Islaamku sida ay uga falceliyaan. dabcan culimo fara badan oo Islaam ah ayaa dalka Imaaraadka Carabta degan sidoo kale culimo badan oo Islaam ayaa hanti ku leh oo deegaano ku leh haddii noqon lahayd Dr. Zakir Naik haddii noqon lahayd daaciyada adduunka oo dhan. waxaa dabcan isha lagu wada hayaa sida ay uga falceliyaan arrintani maadaama ay tahay wax daawac ku noqon kara diinta Islaamka oo ah faragashi awoodihii Allah ah. wixii markaasi ku soo kordhana waxaan idinku wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda. waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan sii share gareysaan channelkan subscribe saartaan. aad baad u mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.